ونمان كشري قلين كودا قلوعيي وحيري عن معنى لهين سيستيو أنا ما كدباتو دي إيو دباتة قرن كوجستي أنا صحينو هذا ريسك دايم ميكروفون ده شيطان كسكن نارو تدكينا وقدم بيسام به هيدينا وقصور ريسان ما هيني هذا كله ده توصف الله وده هذا يدو له هذا دوكمنتيه دي نو وده يلا دوكمنت كستحفظ ده يلا وارد عيبتين قرصة ما لي هاي أدي أدبان وارهم أرتا مدوان صحية والله كهو حلايا هالكودجية ده هراء معارض كلها يعني أنا كوبي أمباس تراهلا وسوكو بجريسان سياسة ضوء حيكون في عام تمركز حلابور عصب للتمادو ووجيدينه حمر خاتكاه هيدا وأنا مهر هذا كشيء كتير إنه يمركي دوضها فقارياش اللي قاعد كهذي حسبيه ده هراء أما حكومة ده هاي أيمن تيرين مدرة وحاور طياب له وسومالنا ودنا يا بنتها رجع يمك كرسي قصنا دي سديد بلوت كم غنا فشل كودي يعيبه قرن كيو جيستين أنا عاصينه يدباتوين كقلنك وجيستين قلنك مركو تشوجي كرسي وقلوعية سوق قنديرة يركع قاطي قبكي يشرفتي قرن كان لها يبسدي قنديرة سيستي قلنك استمان تانو صح إنها قردامة ما أنت ضد كنا هيستا سعيتان كذا أنو كتشرنو إنه يسوق هالك هذي نطاق يسوق وقدام بيو إنه مضاعه يمادو ويسوق أنت النهر يمادو ومانو والبا وحناشه عبء تطق كنت هاي شعب الصومالي وحنلايا ورجع لنا هاي دونتا ومضى كدونتا إنه الميكروفون ذي هرتانو منهن رجع لوجو بويلا منه تد ميكروفون يسوانا دياره وينو قلبت دويلا هيدا وكون في يدي قربتان دياروه doodina keena diyaar baanu anagu xukuumadahan nin dayaxa ku socda xidigu waxba ma yeelan anagu hilin baanu leenahay waa ogtiin qarankan taariikhda Soomaaliland waa markii koobaad ee biyo in baahiyaha asaasiga ummadda in biyo la jabiyo in laga fikiro xukuumadihii dalka soo maray oo dhan in laga fikiro sidii leyd loo jabin lahaa sidii biyo loo jabin lahaa baahiyaha asaasiga sidii wax looga qaban lahaa iyadoona sanad iyo 8 bilood ka soo wareegin ayaa guula qarankani gaaray berigan mucaaradka ahayn waxaanu political program-kayga ku qoran jirnay xisbiga higsigiisu waxa weeye inuu dalka u keenay ictiraaf war meel ka dambaysaa jirta ictiraafkii waanu keenay xisbiyada dambe waxay ku qoran doonaan black program-kooda waxay ku qoran doonaan dee umaba harinba waxba uma reebin mar haddii ictiraafkii 4 sano la raadinayay aanu keenay halkaa waxba kuma jiraan siyaasadda arrimaha dibadda way soo xidhantay madaxweynaha ku guuleystay shacbiga Soomaaliland waa ogii deyr la inagu dhibay oo 4 sanood la inagu dhibay ayuu jabiyay madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo shacbiga Soomaaliland u sheegay qarankani hilin madaxweyne hayina buu haystaa oo hilin toosan inagu hagaya insha Allah bidmillaahi kariim markii 5 sano dhamaato sanadka shanaad marka la galo mucaarad ba wada hadli mayna shacbigu iyaga gacanta iyo afkoodaba ku sheegi doonayeen madaxweynaha doonayaan ay soo celinayaan haduu Ilaahay yiraahdo ku tartami mayno wax qabad waayo annagu mucaarad baan soo hayno na dhibi mayso in la toosiyo oo nala tilmaamo 20 sanood baan dee soo taagneen lahayn hana la tilmaamo laakiinse waxa ceeba in been iyo propaganda shacbiga laga dayo wixii runa diyaar baan u nahay marka la igu raa daaqadaadu way jabantay toosi ama daaqada iska hagaajinaya waana toosinaya laakiin wixii beena iyo propaganda loo baana aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan leeyahay annagu diyaar uma nihin meherada iyo aroosyada inaanu siyaasad kaga hadallo laakiinse haddii laga hadlo dee waa laga hadlaya yaani na dhibin haddii la galo waa la gelaya waana laga hadlaya runtan waa la isu sheegaya haddaba waxaan leeyahay waa nimanka shalay qalinkooda qalloociyey waxa yaree aan macnaa lahayn siistayo aanu imaka dhibaatadoodii iyo dhibaatada qaranka u geystay aanu saxayno adeer iska daaya mikrofoonada oo shaydaanka iska naaro dadka ina ugu dambeysaan bay hayday ina ugu soo horeysaan ma ahayn
haddii kale dee toos baa loo wada hadlaya hadduu ilaahay idhaahdo dukumentiyadiina waa wada yaalla dukumenti kasta xafiisyada waa yaalla waana ceebtiin qarsada baan leeyahay aad